بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد يلحو وأنا لسعتين دونا قيم طلبات فركشن كا عشر كيني نوجد بي وحوها الفاكتوريز and multiples أو ها محاكور هذا يصيروا هي نفس سنيان عشر كيني ما أنت سبوردا إنه صار إنه lowest common multiple oo LCM na loo soo gaabiyo waa dhufsan yaraha ay wadaagaan LCM ku waa dhufsane yaraha ay wadaagaan laba tiro ama marka wax ka badan oo saddex tiro afar tiro iyo ka sii badanba marka qeexitaankiisa is the smallest positive number waa tirada ugu yar that is a multiple of two or more numbers that is taasoo ah a multiple dhufsane of two or more numbers laba tiro iyo wax ka badan. Example kood marka waxa weeye find the LCM of 12 and 14 labada tiro ayaa laga rabaa dhufsan yaraha ay wadaagaan labada tiro macnaheedu waxa waaye tirada ugu yar ama numberka ugu yar ee labada tiro loo qaybin karo haraa la'aan muxuu yahay. Solution dabeed waxaadeen xalino xalanahay 12 maadaama ay tahay tiro dhabana 14 ay tahay tiro dhabana 12 baan waxaynu u qaybinaynaa 2 14 waxaynu u qaybinaynaa 2 haddana 12 u qaybino 2 waa 6 14 haddana u qaybino 2 waa 7 haddaba tiradan waa tiro kasi laakiin tiradan waa tiro dhaban daba waxaynu yeelaynaa inaanu tirada dhaban aan u qaybino halka 2 aynu saarno labada waxaan u qaybin doonaa tirada dhaban ee 6 ah 3 baa soo bixi doonta 7 laakiin maadaama aysan laba u qaybsamayno iska soo dejin doonaa haddaba si halka aanu saddex aan ugu helno uga dhigno hal todobadaana aynu uga dhigno hal marka hore halka waxaynu saaranaa saddex baynu qaybin doonaa saddex hal baa inoo soo baxaya todobana waan iska soo degsanaynaa haddana todobadaas aynu uga dhigno hal halka waxaynu saaranaynaa todobaan u qaybinaynaa todoba marka hal baa halka ka soo baxaya halkaana waan iska soo degsanaynaa asagan. Okay, das hada waxaynu leenahay LCM of 12 and 14 is dhufsan yaraha ay wadaagaan 12 iyo 14 wuxuu noqonayaa laba aynu waxaynu ku dhufanaynaa haddana labada haddana waxaynu ku dhufanaynaa saddex haddana waxaynu ku dhufanaynaa todoba aynu ku dhufanaynaa haddaba tirooyinka aynu isku soo dhufano wixii ka soo baxay waxay noqon doontaa dhufsan yaraha ay wadaagaan labada tiro oo 12 iyo 14 haddaba waa ka laba waxaynu ku dhufanaynaa waxaynu ku dhufanaynaa saddex waxaynu ku dhufanaynaa afar waxaynu soo baxaya 8 iyo maxaan ku raahday 40 8 iyo 4 taa inoo soo baxday waxay tahay tirada ugu yar aynu u qaybin karno labada tiro ee 4 iyo 10 iyo 8. Example labaad ee ku xiga find the LCM of 4 and 28 waxa soo saartaa meesha adraadisa dhufsan yaraha ay wadaagaan ee tirada 4 iyo tirada 28 haddaba sidii hore waxaynu leenahay tirada maxaynu u qaybin karnaa 28 maxaynu u qaybin karnaa maadaama tirada dhabantaantan ay dhaban tahay labada waxaan u qaybin karnaa 2 xagga 2 saar 4 u qayb 2 waa 2 28 u qayb 2 waa 14 haddana tirada waa dhabantan waa dhaban halka waxaynu saarnaa 2 aynu waxaynu qaybinaa haddana 2 waxa soo baxaya 1 14 waxaynu u qaybinaa 2 waxa inoo soo baxaya 7 haddaba halkan hal waaye asaga iska soo degso waxaan leenahay marka 7 maxaan u qaybin karnaa waa tiro kasi 7 u qaybinaa bis waliba waa prime number oo tiro xitaa tiro kala dhufsan u ah ma ahna waa prime number iska ay ku jirtaa halka marka waxaan u saarinaa 7 marka 7 u qaybinaa waxa soo baxay hal baa soo baxay san u helno marka lowest common multiple ama LCM kala wada tiro ay leeyihiin waxaan isku dhufsanaynaa labada iyo 7 ayaynu isku dhufanaynaa maxaa soo bixi doona marka waxaan leenahay das hadaba LCM of 4 and 20 waxa weeye 2 lagu dhuftay 2 oo 4 lagu dhuftay 2 waa 4 lagu dhuftay 7 waa 28 ka waxay inoo tarjumaysaa macnaha tirada ugu yar ee loo qaybin karo 28 iyo 4 iyaduna soo harin wax hara ah waa 28 macnaheedu waa sida. Example saddexaad find the LCM of 8 14 32 and 48 waxaad soo raadisaa mid heshaa dhufsan yaraha ay wadaagaan tirada 8 4 iyo 10 32 iyo 48
haddaba maadaama dhammaantood ay yihiin tirooyin wada dhaban ah waxaan halkaa u saarinaa laba ayaan wada qaybin doonaa. marka 8 u qaybi 2 waa 4, 4 u qaybi 2 waa 7, 3 u qaybi 2 waa 16, 48 u qaybi 2 waa 24. maadaama tirooyinkan weli ay ku jiraan tirooyin dhaban ah waxaan leenahay halkaa waxaanu saarinaa 2, 4 haddana u qaybin doonaa 2 waa 2, 7 iska soo degso maadaama 2 ay qaybsamaynin, 16 u qaybi 2 waa 8, 24 u qaybi 2 waa 12. haddana tirooyinka maadaama ay yihiin tirooyin dhaban ah waxaanu sameynaynaa halkaa waxaan u saarinaa 2, 2 u qaybi waa 1, 7 iska soo degso, 8 u qaybi 2 waa 4, 12 u qaybi 2 waa 6. maadaama tirooyinka haddana weli ay ku jiraan tirooyin dhaban halkaa waxaanu saarinaa 2 ayaan waxaan u qaybin doonaa. horta 2 tir iska soo degso, 1 iyo 7 iska soo degso, xagga 2 aynu saari doonaa. 2 u qaybi 4 waa 2, 2 u qaybi 6, 2 u qaybina 4 u qaybi 2 waa 2, 6 u qaybi 2 waa 3. maadaama halkaa weli inoogu jirto tiro 2 ah oo dhabana halkaa waxaynu saarinaa 2 waxaynu u qaybinaa 2 waxaa soo baxaya 1, 2 tiran iska soo degso, 3na iska soo degso. waxaanu diilinaa marka inaanu 3 u qaybino haddana 3da waxaa inoo soo bixi doona 1. haddaba waxaa inoo dhiban keliya tirada oo 7da ah waxaanu sameynaa marka 7 ayaan waxaanu qaybinaa 7 waxaa inoo soo baxaya 1. maadaama halkaa ay wada noqotay tirooyin oo markaa wada hala waa sidaan doonayeen. haddaba LCM-ka 8, 14, 16, 48 wuxuu noqonayaa 2 ilaa 7 oo isku dhifano. haddaba waxaan leenahay 2 ku dhifo meeqa labaad waaye waa 5 labaad 3 7 marka waa 1 2 3 4 5 labaad waxaan ku dhifanaynaa 3 iyo 7. markii la isku dhiftana waxaa soo baxay tirada ah 670 iyo 2. waxay noo soo baxay 670 iyo 2. marka waxaa noo soo baxay 670 iyo 2. 672 waxay noqon doontaa tirada ugu yar afarta tiro loo qaybin karo iyadoon soo bixin xaraa. waxaan ugu xigay exercise numberka koobaad find the LCM of the following numbers. law is common multiple ka tirooyinkan soo socda liima raadinaysaa dhammaantood min A ilaa H raadi isku soo day insha Allah. numberka labaad what is the list number of eggs needed to be shared equally among 24 boys or 44 girls with the remainder in each case. numberkaas saddexaad saa u wad ilaa aad ka gaarayso si aad tiradaas numberkaad si fiican u fahamto videoga iska boos karayso. waa ilaa 1 iyo 10 numberka 1 iyo 10 ayaa u dambeeya. waxaa inoogu xigi doona ciwaanka kale ee ah greatest common divisor oo GCD oo ah dhufsanaha ugu weyn tiro 2 tiro loo qaybin karo ama wax ka badan. halka ayaan kusoo gabagabeynaya insha Allah taala waa inoo qaybta xigta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.